dowladii dalkan Sweden ee cusbeyd ayaa dhacday iyadoo lagu dhawaaqay doorasho degdeg ah kadib markii uu baarlamaanka Sweden uu cod u qaaday miisaaniyada dowladda cusub ee Stefan Löfven ayaa baarlamaanka waxa uu diiday inuu ansixiyo miisaaniyada dowladda taasoo keentay inay dhacdo dowladii ra'iisul wasaare Stefan Löfven ayaa imika sida darteed ku dhawaaqay doorasho cusub oo la qaban doono bisha Maarso 22keeda sanadka 2015 ee soo aadan dhicitaanka dowladda Sweden ayaa ka dambeysay kadib markii xisbiga cunsuriga ah ee Sverige Demokraterna ama SD ay la safteen xulufada mucaaradka ee Alliansen taasoo keentay in miisaaniyada dowladdu ay heshay codad gaaraya 153 cod halka ay diideen 182 xildhibaan in doorasho cusub ay ka dhacdo Sweden ayaa ah mid taariikhi ah oo aan horay u dhicin ilaa 1958 ra'iisul wasaare Stefan Löfven ayaa sheegay in ololaha doorashada cusub ay la wadaagi doonaan xisbiga ay imikaba ololka yihiin ee Miljöpartiet ama MP oo ah xisbi deegaanka u dhaqdhaqaaqa iyagoo doonaya inay si wada jir ah mar kale u soo dhisaan dowlad ay ku mideysan yihiin ra'iisul wasaaraha oo xilka qabtay bishii September ee sanadkan ayaa dhowr jeer isku dayay inuu gacanta u fidiyo oo uu la shaqeeyo ama la hadlo xisbiyada ka tirsan xulufada Alliansen balse kuwaas ayaa diiday inay la shaqeeyaan isaga Stefan Löfven ayaa horay u ballan qaaday inuusan la shaqeyn doonin dhinaca kale xisbiga SD ama Sverige Demokraterna xitaa haddii ay dowladdiisu dhacayso taasoo imika u muuqata mid dhab noqotay xisbiga SD ayaa sheegay inay doonayaan inay doorashada cusub ee dhici doonto bisha Maarso ee soo aadan ay kordhiyaan codadkooda oo ay aad u ololeeyaan iyagoo sii wadi doona dhaqdhaqaaqa ka dhanka ah magangalyadoonka iyo soo galootiga